السلام عليكم walaalay qaaliga waa idin wada salaam markasta adduunka joogtaa waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan waxaa idin leeyahay walaalaha cusub soo dhawaada markasta iyo goor kastaba insha Allah walaalaha hore noola joogno waa idinkaga mahad celinaya la joogistiina qurux badan haddii ay tahay markii ugu horeysa channel ba soo daawanaysan insha Allah waxaa kaa rajeynayaa inaad subscribe noo saarto like iyo share tan naga ilaawina soo sida arkaysan waxaa inoo wada casho fudud oo maasha Allah tabaarakallah يعني أقول لك شيء كنكر آت أي أفضل وقت بدن كام خالنا إن شاء الله ساعات جودي هذا أفرتنا جودي وكودي أصلا نسا وح أبهانتنا وقدار أنت أقول بدن قدار أي أبهانت هاي كله قدارتنا قدار الله على قدار تعيش مركز سجورة تعالى كسمة سنة يعني محاولة مش كنكر ما شاء الله سود دو هذا ويد لو ذا جيا عشان وحيت هاي عشان وحكوا في عنده وحيت هاي مركز وقت وضع قاعدنا إنسان أديك يقف كاجا ama habeenada qaar habeenka jimcaha kale insha Allah maalmaha shaqooyinka laga nasanayo kale ay ku wanaagsan tahay in TV-ga lagu daawado la sheekaysto la yani ma sha Allah tabarakallah waqti badan in loo yani waqti qurux badan in la wada qaato aad ay u wanaagsan tahay in laga wada sheekaysto maalmihii shanta maalin la wada cararayo kale shaqooyinka loo cararayay soo qudaarti ayaan soo dhaqay qudaarti markii aan soo dhaqay waxay tahay laba barbarooni kala nooc ah barbarooniga cas iyo barbarooniga jaalaha ah iyo waxyaro qajaar iyo jab oo yani basasha cas ama basasha gaduudan qof walba sida u taqaano xabad yaanya ama tambando qofka yani qof walba sida ay u garanaya insha Allah soo waxa usoo jarjaraya si yar yar oo fudud oo yani oo hadhow cuntada lagu cuni karo insha Allah qudaarta dhan waa isla soo wada ekeysi doona soo takuskan inaba caadi ma aad ay u fudud yahay soo takus hada arki jirtay hilib shiishid lagu cunayo takus hada arki jirtay si kale loo sameysana insha Allah takuskan waxa way malay ayaa ku isticmaalaysan insha Allah malaygana waa malay aniga gacanteeda ku dubayo ma aha mid يعني asagoo duban ama asagoo diyaarsan kale inaan soo gaday soo qudaartii oo dhan ayaa waxaan rabaa horta marka hore qudaarta inaad diyaarsato waa muhiim inta aadan cuntada aadan sameynin waayo qudaarta hadhow waxay kaa saamaxaysaa raashinkii kulul marka hore inaad ka diyaarsato marka qudaartu ku diyaarsan tahay soo waxa u baahan tahay waxay tahay muhiimadda ay tahay waa عنبو عنبا لا عنبا هيستي لكن عنبا إنه حوجا جلعسين هاي حوجا يعني عنبا جلعسين إنه آت أي مهم تهاي عنبا نسوا كلته سيارير أو كلته خضار أي نسوا جردونا يحبط عفكاده خضار تمركة هذا أذن جعلين وكريب كرتا عنبها لكن أنا حنقول قلت الله هدي هلسة عنبها إنه قدر استان عنبا وصمينا ددن إن بعده هنا يوصمي دونا إن شاء الله أفكار إنه مهم إذا كان سو كلت إن استعماشان أفكار هدي هلسة سو خضار تقسم ما أنت أني استعمال هرت إن استعماشان خضار على الخضار تأمرك سيستعمل جورجين إيدينا لا أي مهمة تتعين على وضع استعماله إن شاء الله سو كلفات مجرته قفل بجورجيس يفريج كيس وجرو أي مهمة تتعين لكن waxa muhiim ah in qudaarta aad isticmaalayso inaad ka samaysato qudaar yar yani si yar aad u jarjarto oo aad u fudud takuska inaba caadi maaha aad ay u macaan badan afakaadaas gadaal dambe ayaa ka jarjar doona way afakaadada waxaan diidaa in iga madawaato soo meesha waxaan kusoo diyaarsaday 3 saxan ayaan kusoo diyaarsaday saxanka bilaaran marka hore waxaan ku hormariyay waxay tahay rootiga shiidan oo diyaarsan rootiga shiidan waa la wada garanaya waxyaabaha markaad rabto inaad dubto ama filteerad ama saliid inaad ku dubto aad rabto kala qajac ay u sameynaya soo rootiga shiidna halkaas ayaan kusoo shubtay halkaasna waxaan kusoo shubtay 2 koob oo bur ama koob iyo bur iska dheh ayaan kusoo shubtay qiyaasta adiga ay kugu xiran tahay wixii aad sameynayso insha Allah halkan kaleeto waxaan kusoo diyaarsanaa asagana sidoo kaleeto 2 xabo ukun soo waxa waaye 2 xabo ukun waxaad u baahan tahay kaleeto rootiga shiidan iyo bur intaas ayaad u baahan tahay soo marka waxaad sameyn doontaan insha Allah burka ama rootiga labada mid adiga ayaa dooran karo cusbada inaad ku shubto wax yar oo cusbe kadibna aad ku walaaqdo dhadhankaaga yani hadda aad doonayso insha Allah malayga soo ukunta ayaa hadda si fiican usoo garaacay ilaa si fiican isku dhex gasho ukunta halkan waxaan soo diyaarsaday digsi macdan ayaan soo diyaarsaday soo digsiga wuxuu ii fududeynaya xoogaa saliid inay si fiican iigu kulaato iyo si fiican iigu dubto insha Allah soo saliid kama badan doon inta arkaysan ayaan kusoo ekeeyay qof walbaba iyo يعني familkiis intuu ka kooban yahay iyo wuxuu sameeyay markaas ay ku xiran tahay halkaas ay arkaysan waxaan soo diyaarsaday waa malayga cad malaygan cad waa toshka fiska ayaa dhahnaa anaga laakiin waa malayga cad Soomaaliya ma garanayo waxa lagu dhaho markii xagga la joogo kaleeto soo malayga waxaan u soo jarjaray 2 nooc midna xogaa yar waaweyn ayaan ka soo dhigay midna xogaa waa khafiif insha Allah waxaan rajaynaynaa muuqaalku si fiican aad u aragtaan waadix aad ay u fududahay qaandadaas ayaan soo qaatay haddii aad doonaysaan gacmahaaga waa soo dhaqan kartaa oo waad sameysan kartaa marka hore waxaan ku bilaabnay burka ayaan ku bilaabnay xogaa qalal inuu ka soo dhigo
kadibna ukunta ayaan geli doonaa kadib ayaan waxaan ku shubi doonaa rootiga ayaan dhexdhex geli doonaa insha Allah sidaas ayaan kusoo wadeynaa sida arkaysaan waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad ka bagataan oo aad haddaad ka heshaan ii share gareysaan laagtina aadan naga iloobin insha Allah laagta aad iyo aad ay u hooseysaa soo muuqaalka haddii idin cajib geliyo si muuqaalka kor u baxo waxaan idinka codsanayaa walaalahay muuqaalka qof walba uu daawado inuu laagta iigu qabto insha Allah asxaabtiisna oo la share gareeyo oo la wadaago si asxaab cusubna anagana u helno wayna kaga mahadcelinaa insha Allah soo halkaas ayaan saas ayaan kusoo wada doonaa kadib markii waxaan sameeyay burka markaan ku hormariyay kadib ukunta ayaan ku riday rootiga ayaan u dambeysiyay oo kusoo wada doonaa insha Allah waxaan arki doonaa sidaan u wada dubno yani qof walba step by step ayuu maraa soo kadib aniga waxaan jeclahay intaan saliida u gudbin ka hor ayaan waxyaabihii oo dhan iska soo diyaarinaya si ay ugu fududaato oo noqoto midkaan bixi midkaan geli ayaan rabaa insha Allah gacanta inaan fududeeyo soo hadda malaaygeena waa inoo diyaar saliidii waa inoo soo kululaatay saliida saaid kuleel inay noqoto ma fiicno waayo haddii kaleeto malaayga wuu gubanayaa asagoo uusan bislaanin soo malaayga marka horeeto barafka ayaan hoosta kasoo riday oo malaayga baraf badan muusan lahayn xilli hore aday saacad ama 2 saac ka hor banaanka inaad soo dhigato aad iyo aad ayay muhiim u tahay soo malaayga ayaan kusoo ridayaa si tartiib waqtigaaga يعني قاعدة إن شاء الله ملاقين سير أو فضد وما شاء الله تبارك الله يكون قدومي دونا إن شاء الله وكسا مركا وحان سميي وانكو دريدي كرو وان وده هالمر إنا نكو وده شوال لكن وحان ربي وحيرو سبيس إنو إلا هذا سي ملاقي سي قروح بدن وما شاء الله تبارك الله يقدمو سو هلاس أيان كسو إكيسينا مركا وحان سميي دونا إن شاء الله ملاقين كال إسكا أرغو حوصون خضي قدود أن لقى شيكين كرونو إننا بعادهن ما شاء الله تبارك الله soo wakasa waa ciyaalkiina u sameystay insha Allah casriyada aad ayuu ugu fudud fiican tahay soo caruurta marka aad u jilcan yahay malaayga sidaan loo sameeyo caruurta markii iskuulka laga keeno kaleeto galabtiyo kaleeto haddii wax yar oo soos ama kajab oo kaleeto aad ugu shubto meel malaaygan sidaan ugu dubato ما شاء الله تبارك الله لكم شيكين كرو سو ملاقين وكسو بحي ورقد أيام حسو صارت السحنك ورقد مركو حسو صارت وحيتها وصو جرجري سي ملاقي سليدي سو إيغاغا هارو ملاقي سليد مركو شي والبو سليد كدبتور سليدي سي إنا ميل شي مرأة أما ورقد آت وفي عنا إنا دول صارتو سي سليدي كاغا هارتو سليد اوغو بدن وكتا قيبتي لبعض أيام هذا نكسو شو ما شاء الله تبارك الله لكم شيكين كرو ملاقي إن بعاد معها والله وحاول آتي أن أفدودي وقت بدنا كام قادني أسقط بحكم من سام مدة 20 دقيقة سليد أنت كاجا سكر كراسي ملاجس بركة يكونت وحياباس أنت مرمرني سليبان إن بعد ما كشكي وكوردون عروض خلاصمي إن شاء الله وقت هذا أقول بدنا مركز شكي سنة في ملء أهاني إن وضع قادتان عربتان وكلت إن شاء الله ملاجس سنة لو وضع سمستو وحرجينا عروض إن لو جفا إيديو waayo caruurta wax ka muhiimsan oo adduunka inay jiraan ma umaleynaayo waxyaabaha caruurta faa'iidada ugu leh ay kamid tahay malaayga qof waliba ama qof weyn ahaa ama qof yar ahaa waa aad iyo aad ay u fiican tahay wiigii 2 mar ama 3 mar qof waliba sida uu awoodo inuu soo iibsado ayuu ku wanaagsan tahay soo hadda waxaa idinka tijaabinayaa malaayga sida ku soo baxay ma sha Allah tabaaraka Allah lagama sheekin karo soo malaayga wuxuu yeeshay laba yani malaayga gudaha ayuu galay qaybtii koreetan waxay noqotay qayb crispy يعني كم توجنس وحيابها ماكدونالدز كلا جسوا قضي إيميلها كم بريسيت إن استعماش إن شاء الله آد كل جد أيها كوسا ميسان كرتا وحيابها فلترات كإيه وحكو حرنتها هاي قعان تاضا هيكو حرنتها هاي يد ذلك آد موجش إن شاء الله سو ماشان حسوا قضي تورتيلا دكامك أيو يلا هدي أدوني سنة عيش سي خفيف أو يرفضت أيها كوسا ميسان كرتا أو يرير لكن مركا عني وقت بدن معنين هينين وحلقي هوري وحان كسو بحي شاقو حلي دنبان قولي أيهان جوغي ma rabin marka waxyaabo waqti badan iga qaadana waxaan rabay wax aan ku sameeyo saacad gudahooda inaan ku hagaajiyo jikadii cuntana aan kasoo saameysto ma sha Allah tabaarakallah si aan nafteyda ilmaheyga waqti aan ula qaato oo casheero fudud oo ma sha Allah tabaarakallah oo lagu wada sheekeysan karo oo la iska fadhiyo inaan ku wada casheeno soo meesha halkan waxaa ii yaalo waxay tahay tortilla ayaan waxaan sameynayaa ama rootigii ama tortilla iska dheh ama rooti labadaba midka aad u taqaan insha Allah ayaan waxaan sameyn doonaa insha Allah si yar oo iskugu aadinaya si ay ugu fududaato inaan qudaartii malaaygi aan isdhex geliyo
si yar fudud mayonnaise-kaas ayaan isticmaali doonaa xoogaa waa kulul mayonnaise-kaas waa chili mayo basbaas ayaa ku jiro marka geeskaas waxaan kasoo dhigay xitaa bakeeri si oo khudaarta igu celiyo ma rabo inay waxyaabo badan iga kala daataan sida arkaysaan waxa waaye markaad ku shubto wax yar uu kala sisikanayaa marka muusan iyo olin alwaax loogu talagalay ayaa jirto waxyaabaha takisko kaleeto oo ku celcelinaya laakiin hadda markii aan sameeyay mid kasta iyo khudaartiisa markaan kusoo shubay asaga ayaa is celcelinaya labada gees oo ugu horeysa ayaa ugu daran يعني جيسك ugu horeeyo inaad wax ku tiiriso si ay kuugu cushoonto ay muhiimada tahay ma sha Allah tabarakallah soo marka waa kana soo hada midkii ugu dambeeyay hadda sameyn doona insha Allah waan soo dhameynay lagama shankeey karo waxa waa casho aad u fudud khudaar u badan tahay malaay ku jirto lagama shankeey karo waxaan rajeynayaa inaad soo tijaabisaan inaba caadi maaha soo sidaas ayaan ku soo wadeynaa insha Allah soo cashada aad iyo aad ay u fududahay sida marka hore idin sheegaba waxa waa mayonnaise ayaa hadda dusha kaga daraya waa mayonnaise aad iyo aad u kulul soo caruurta hadda siisanaysan insha Allah waxaan rajeynayaa inaad yani waxyaabaha yogurtka ama mayonnaise caadiga oo aanan lahayn wax basbaas guriga inaad ugu samaystaan iyo kajab ayaga waxyaabaha soos kala samaystaan insha Allah laakiin aniga waan yani hoosh waan fududeysanayo waayo waxaan sameynaa insha Allah waxyaabo suuqa laga soo iibiyay iyo waxyaabo gurigaada aad ku samaysanayso inaad isku basarayso insha Allah soo wax yar kabtar caleen ayaa waxa ugu dhigay wax yar decoration ama ku qurxiyay ma sha Allah tabarakallah halkaas waxaan soo saartay liin iyo wax yar canab si on marka la casheeyo kadib lagu faakahaysto waayo waxyaabo fruit oo u baahan tahay wax yar quraac yani khudaar insha Allah halkan waxa soo diyaarsaday xitaa wax yar sauce loogu talagalay chipsiga baaquli yar chips ayaa halkaas ku soo shubanay ma sha Allah tabarakallah laga sheekay karo muuqaalkiina waa gabagabo